shaqada lagaa eriyo kama dhigna gabagabada noloshaada. Waxaa jirta xigmad caan ah oo odhanaysa waa in aad ka faa'iidaysataa maalin waliba oo noloshaada ka mid ah, sababtoo ah maalin waliba oo ku soo marta waxaa laga yaabaa in ay noqoto maalinta adduunka kuugu dambeyso. Balse weligaa ma ku fikirtay in maalinta kuugu xun ee noloshaada in laga yaabo inay isku beddesho bilowga maalmahaaga quruxda badan? In badan oo qisooyinka guusha ka mid ah oo aan maalin walba maqalno waxay ku bilaabmeen qaab fashil ah, balse waxaa jira dad badan oo ay guushoodu timid kadib markii ay ka tageen shaqooyinkoodii hore, waxaana u furmay majaalkii cusbaa oo ay weligoodu ku hamin jireen. Sidaas daraaddeeda mar waliba halheeskaagu ha noqdo waan awoodaa, hana quusanin, sababtoo ah guushu si sahal ah kuma timaado. Elvis Presley wuxuu in badan isku dayay in uu ka mid noqdo koox heesaa ah inta aanu noqon nin gawaarida xamuulka ah kaxeeyo, balse mar waliba wuxuu la kulmi jiray niyad-jab, lamana aqbali jirin codkiisii oo xumaa awgiisa. Xitaa mar waxaa dhacday in uu hees ka qaado mid ka mid ah masraxyada ugu caansan ee gobolka Tennessee, balse ninkii masraxa mas'uulka ka ahaa ayaa wuxuu ka codsaday in uu iska aamuso maadaama aan codkiisa lala dhicin. Balse ugu dambeyn wuxuu aaday gobolka Los Angeles, wuxuuna bilaabay in uu raadiyo qof aaminsan mowhibadiisa ilaa uu ka noqday fanaan aad u weyn, waxaana loogu magac daray Elviskii boqorka ahaa. Oprah Winfrey waxay ku soo kortay nolol aad u adag, laakiin way dirirtay oo ma aysan quusan ilaa ay ka noqoto qof wararka ka baahiya mid ka mid ah tiifiyada ugu caansan ee gobolka Taymuur ee dalka Mareykanka. Laakiin maamulihii TV-ga ayaa shaqada ka eriyay isagoo ku marmarsiyoonaya in aysan lahayn weji ku habboon in shaashada TV-ga ka soo muuqdo. Markaa kadib waxay gudagashay in ay baahiso barnaamij subax la ahaa. Muddo kadibna barnaamijkeedii waxaa ku xirmay dadyow aad u fara badan, wuxuuna xambaarsanaa magaceeda Oprah Winfrey Show, kaasi oo qaata muddo saacad ah. Waxayna barnaamijkeeda ku martigelisay agtaro, madax iyo dad kaloo caan ah oo ka soo kala jeeda daafaha dunida. Winfrey waa haweeneyda ugu taajirsan ee madow ah, waxaana hantideeda lagu qiyaasaa ku dhowaad $2 bilyan. Stephen King inta uusan noqon ka hor mid ka mid ah qorayaasha ugu caansan ee dunida, gaar ahaan curinta qisooyinka ee mala'awaalka ah, waxaa dhacday in riwaayad uu qoray oo magaceedu ahaa Carrie 30 mar la diiday in la aqbalo. Waxaa la sheegaa in mid ka mid ah xarumihii lagu faafin jiray riwaayadaha ay riwaayadiisii diideen, iyagoo ku andacoonayo in ay tahay mid lagu caajiso. Markaa kadib Stephen wuxuu isaga tuuray qashinka, balse xaaskiisii ayaa ka soo saartay godkii uu ku riday, waxayna ka codsatay in uu dhammaystiro riwaayadiisii. Sidaa daraaddeeda Stephen mar kale ayuu isku day sameeyey. Ugu dambeyn riwaayadiisii waxay noqotay mid la soo bandhigo, magac badanna sameysa. Aad ayaad ugu mahadsantahay daawashada muuqaalkan. Muuqaalkeenan halkan ayuu ku egyahay. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.